السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي ولا لا كحرن شلن كنا سمجرات مقال كنا ما أنت وحن كوي جدونا سببت دركو ديدا إن يفعل لا يماتان أما سببت كدم بسينا دركو هوش ما أنت وتعلي اعتبور دكان دور سؤالات بين إسكوي ديني دونا مقال كنا أي بالهم كذا قلوا مقال كنا ما أنت قارن نجمد هاي شقدي ما أنت عيه دب وجود كان بري أما أسبوعها حاجة هدي عدلة هاي هدف عدونيسو حقيقتيس وعدريمسو إنه تشرو أرين كهرتاجن فلنتيس رادي سبب تدبتها إيكو ديدا نفت هذا ويدي سؤالان محاي ديدان إن شقدا ما أنت قبته أنا بري ودقين محويا أرين كوحنا دعاية هدي عن شقدا ما أنت قبته أما أنا دب ودقين محويا سويدي haddii aan shaqadan qabto see maxay tahay natiijada ugu fiican ee ii soo baxaysa imika isku day inaad xasuusato imise jeer oo noloshaada kamida ayay arin adag intay ku soo wajahday haddana aad ka gudubtay isweydii waxa jirta qaacido tiraada fashil ma jire ee waxa jira khibrad la'aan tusaale qof aad garanaysid oo haysta qalab casri ah balse aan garanayn sida looga faa'iideysto oo dadkana looga faa'iideeyo marka fashil ma jire ee waxa jira khibrad la'aan qofka inuu khibrad u yeelan waayo waxyaabaha ku xeeran waa mushakil fashil ma jiro ee waxa jira khibrad la'aan maqaal ka soo baxay jariirada Wall Street ayaa sida tan u qorna ha ka argagixin fashilka ee ka fikir fursadda ku dhaafaysa dad baa ka fikira caqabada iyo waxyaalahan ka hor imanaya iyo fashilka balse ka fikir fikradda iyo waqtigan kugu soconaya ku dhaafaya mahmaa Japanese ayaa tiraada haddii aad 7 jeer dhulka ku dhacdo istaag marka 8aad dhulka ka kac haddii marka 7 jeer aad fashilanto isku day inaad iska fadhiisatid gacmaha isku laabatid isku day marka 8aad mid kamida saxafiyiinta ayaa wareysi la yeeshay mid kamida ragga guusha gaadhay wuxuuna weydiiyay maxaa sababa guusha aad gaadhay wuxuu yiri waxa sababa go'aan sax ah haddana wuxuu weydiiyay sidee ayuu inagu suuragelaysaa inaanu qaadano go'aan sax ah wuxuu yiri khibrad saxafigii ayaa weydiiyay oo sidee ayay inagu suuragelaysaa inaanu khibrad kasbano ninkii ayaa saxafigii hadalkiisa ugu soo koobay go'aano khaldan unba inaga saacidaya inaan khibrad yeelano marka hore waa inaanu khaldana markaasin wax saxana waxa jirta hal ku dhid shiinis oo tiraada go'aanada toosani waxay ka yimaadaan khibrad oo iyaduna ka timaada go'aanada qaldan marka hore hadaan waxba khaldin waxba saximeys balse dad baa ka baqa caqabada ka baqa muhiim ma aha inta jeer aad fashilantay ama inta jeer aad dhulka ku dhacday waxa se muhiim ah inaad imika dhaqaaqdo oo aad ka faa'iideysato khalad kasta oo dhacay waqti hore wixii tagay waxay ka dhigan yihiin khasnad ka kooban xikmad iyo awood marka waxa fiican inaan wax ka barano khalad kasta oo ina soo maray waqti hore marka isla maanta dhaqaaq dadku waxay doonaan ha yiraahaan waxay doonaan ha sameeyaan wax tixgelin ah hasin wax kasta oo ay yiraahaan kaliya tixgelin si xaqiijinta himiladaada iyo hadafkaaga wuxuu yiri Heller Cleary noloshu waa isbiimeen iyo khatar haddii kale wax qiimo ah ma yeelateen waati maama Soomaaliyeed ahayd nin 20 jira intuu geed ka boodo talana ka booda marka wax kasto intaad nooshay la kulmaysid isku day si khibradeysan oo isbiimeen ku jirto inaad uga gudubto balse haddaad noqotid sida jiilkan imika teknoolajiyada ku caqliyeystay TikTok ku caqliyeystay oo jilicsan noqotid oo caqabadii ku soo martaba aad isku dhiibtid laqad maata noloshu way ku ciyaaraysa sida balooniya ama kubadda marka waxa fiican inaad imika dhaqaaqdo oo aad qorshe u dejisato xaqiijinta hadafkaaga waayo dad badan waxay ku fashilmeen noloshooda qorshe la'aan tusaale shaqada istiri qabo shaqada waxyaabaha ka soo gaadhaya ee ka hor imanaya kuma aad xisaabtamin wad iska gashay shaqadii dhibaata ka hortimi caqabad baa ka hortimi culays baa ka horin hadhowto laba midun bay noqonaysaa inaad isdhiibtid iyo inaad ku samirtid oo aad ka gudub marka waxa jira dad shaqooyinka iska gala balse aan ku si xisaabtamin dhibaatooyinka ka hor imanaya caqabada uu leeyahay shaygaas uu qabanayo hadhowna isdhiiba marka noloshaadu qorshe ha yeelato wax kastana qorshe u deji intaana qaban qorshe yeelo qorshahaasna noqdo waqtiga kaaga baxay iyo shaqadu ha isleekaadaan
markaa shaqada qorshe la'aan la qabto waa sababta koowaad ee fashilka. Ha u ogolaan cidna inay istaagto dariiqaaga, kuna cibro qaado dadkii guulaystayaasha ee lagu jeesteesay sida Weylin Dhised oo ay ka eriyeen shaqadii jariirada iyagoo sabab uga dhigay inuusan ahayn nin wax curiya oo wax soo saara. macallinkii Thomas Edison wuxuu yiri waa arday aad u saaqida, marnaba suuragal maaha inuu wax barto. balse Thomas Edison weyn wada naqaana wuxuu adduunka ku soo kordhiyay intuu adduunyada joogay. leerka imika baxaya guri kasta, xaafad kasta, geeya Soomaaliyeed ka baxaya ninkii ixtiraacay buu sameeyay. mar Thomas Edison uu yiri 99 jeer baan fashilantay, maxaa ku waalay imika ka sii daba socota waxaad ku fashilantay? ayuu wuxuu ugu jawaabay dadkii ku yiri, waxa uu yiri 99 jeer aan fashilmay iskama aan fashilmine waxaan ogaaday 99 hab oo aanu leer ku shaqeynin ayaan ogaaday. aakhirkiina waa ka leerkii daarayba. Albert Einstein kaasoo aan hadli jirin ilaa uu ka soo gaaray sanadkii 4aad ee daadiisa, qoraalkana aan baran ilaa uu ka soo gaaray sanadkii 10aad. macallimiintiisa ay waalidiintii ku dhaheen horumarkiisa aqooneed aad buu liitaa, mana aha nin bulshaawi ah. balse Albert Einstein dhammaantii ma wada naqaana wuxuu ku soo kordhiyay adduunka intuu joogay. markaa heer baa la gaadhay in maskaxdiisa markii uu baktiyay in maskaxdiisa la baaro bal inuu aadama inuu wax dheer yahay iyo kale. markii la baaray maskaxdiisa waxa la ogaaday inaanu aadama waxba dheereen oo balse uu ka faa'iideystay awoodii Ilaahay uu siiyay ee maskaxda. balse dadka qaar baa jira geeyina Soomaaliyeed waliba dhalinyarada in runta laga gabado ma wacnee dhalinyaro maskaxdeedii awoodii Ilaahay siiyay ku mashquuliyay sidii TikTok isticmaali lahaayeen ee caan uga noqon lahaayeen iyo Facebook iskaga dhex fadhiyi lahaayeen iyo WhatsApp shukaansi aan dhaafsiisaneen shahwaadka ay dhalinyaradii maskaxdoodii ku qofuleen. dadkii horena heer bay gaadheen bayna la yaababa maskaxdooda laga yaabo fikirka ay la imanayaan. markaa maskaxdu waa awood Ilaahay subxaanahu wa ta'aala addoomihiisa ku manaystay, waxaana la dhahaa waa xubinta jidhka bini'aadanka. marka wadnaayo laga yimaado kaliya xubinta ugu muhiimsan weeye maskaxda. markaa qof kastoo maskaxdaada sidii saxdeed uga faa'iideyso. wuxuu yiri Dr. Robert weligaa guulaysan maysid haddii aadan maanta bilaabin. hana ka dhigin mushkiladaha ku haysta inaadan waxba qaban karin. dad baa caqabadaha yar haysta qiil ka dhigta, cudurdaarna ka dhigta, cudurdaar. ceeriyaanta qorox ayaa ka dambaysa, mugdiga gadaashiina waxaa ka dambeeya iftiin. xagaaguna wuxuu isku bedelaa guu. markaa adiguna noloshaada bedel oo sida maalmuhu, ayaamuhu, sannaduhu isku bedelayaan, adna noloshaada isbedel weyn samee. Warren Buffett ninka lixaad ee dunida ugu taajirsan ayaa laga hayaa odhaah caana. wuxuu yiri nacas qorshe leh ayaa ka guulaysan kara mid garaad badan oo bilaa qorshe ah. weligaa waa inaad qorshe yeelataa iyo ujeedo, haddii kale waxaad arkaysaa mid aad shalay nacas u arkaysay oo aad waxaad ku hamiyeysay ka dhabeeyayba isagu. booska aad ku hamiyeysay isagoo taaganba ayaad arkaysaa yaab iyo ama kaad bay kugu noqonaysaa adna wadiin iyo jabayba. isku day haddaba maanta inaad qorshe iyo hadaf la'aatid. haddaba isku day inaad qorshahan iyo ujeedooyinkan halkaan aan kugu soo gudbinayo in sidooda aad u fuliso si aad tallaabo fulineed u qaado. qodobada aan kula wadaagi doono sidooda u fuli. qodobka koowaad qor 3 hadaf oo aad doonaysid inaad xaqiijisid oo aad ka dhabaysid. hadafkaas waa hadaf yar hadduu yahay 2 bilood buu kaa qaadanaya. haddaad doonaysid inaad luuqad baratid sida luuqadda carabiga oo kale oo diinteena quraankeena ay ku qoran yihiin, waxay kaa qaadanaysaa ku dhawaad sanad meel ku qoro maalin dheer luuqadda wax ka baro. waa tusaale taas, laakiin waxaad ku hamiyeysid hadaysa og. qodobka labaad qorshe u deji hadaf walba waqtigu uu kaa qaadanayo. hadafka kaa qaadanaya 2 sano, mid 3 sano, mid 4 sano, mid 2 bilood hadduu ugu yaryahay. qodobka saddexaad dareen sare u yeelo ahmiyadda uu leeyahay arrinkaad ku hamiyeysid. xamaasad u yeela. xamaasadu inaan ku koobnaani 2 cisho oo kaliya, laakiin hadafkaaga dareen iyo baahi dhaba u yeelo. waa tii la yiri baahidu waa hooyada hal abuurka. marka baahi waa inaad u yeelataa hadafkaaga oo xamaasaduna 2 cisho aan ku koobnaanin. qodobka afraad imikada hirgeli qorshahaaga oo dhan. imikada marka muuqaalka dhameysatid hirgeli qorshahaaga oo dhan. qodobka shanaad maalin kasta hubso inaad ku sugan tahay xaqiijinta hadafkaaga. maalin kasta xaqiijinka hadafkaaga inaad ku sugan tahay hubso. haddaad ka yaragaabisid ama caqabad kaa hor timaado kaasoo dhex gashay halkiisi ka sii wad ee hadafkaaga ku sii soco. qodobka lixaad u shaqee adigoo guushi gaadho oo kale. waxaad u shaqaysaa adigoo waxaad ku hamiyeysad gaadho oo kale. u shaqee mar kasta.
qodobkeena ugu dambeeya toddobaad naftaada cid kale ha barbardhigin kolba waqtigii hore sidaad ahaydun barbardhig naftaada waqtigii hore haddaad ahayd mid tiktok iskaga dhex jira waqti lumis ahaa waqtigaa hore nafta barbardhig isbeddel ayaana u jeedaa dheh balse haddaad barbardhigtid qof bila'aadana oo siduu u nool yahay aad ku mashquulshid waa mashaakil adiguun baata weligaaba noqon maysid qofka aad baraha bulshada ku aragtid noqon maysid markaa waxaa wacan inaad adigu isku mashquulshid oona nafaha kale bila'aadanka aana ku mashquulin waa tii maahmaa soomaaliyeed ahayd tiisama daryeela tu kale ku daran marka haddaad taadiiba garan weydid oo qof bila'aadana ku mashquulsid oo marna isbarbardhigtid waa mushkilad markaa dhalinyarada soomaaliyeed way jiraan dad caynkaasa oo dadka isbarbardhiga dadka ciyaartooyaa noqdaan dad soomaaliyeedoo dadka ka dhex caanaa noqdaan oo ku mashquulsan weligaaba noqon maysid qofka aad ku mashquulsanta balse adu waxaad noqonaysaa qofka aad maanta aad u shaqaysatid oo u dadaashid oo u dhiditid oo dhibaato aad u martid ayuunbaad noqonaysaa ayuunbaa noloshana lagugu qiimanaya iyo waxaad dadkaaga kusoo kordhisid dadkaaga aad kusoo kordhisid ayuunbaad noqonaysaa ee noqon maysid hebel oo aad taqaanid weligaabaadad noqonayn taasuna waa taas qodobkii ugu dambeeye weeye haddaba waxaan rajeynaya in muuqaalka wax badan aad ka faa'iiday balse intaana ka bixin motion yar ayaan kula wadaagaya ee la daawo haddaba waxaa jira optionka dad loo fuliyo aana dadka waxba kusoo kordhinin marka waxaan leeyahay optionka waxaad u fulisaan dadka waxtar kale oo dadkooda xoga ka maqan kusoo kordhinaya waxa u fuliya markaa su-aalaan ku weydiiyey intaana muuqaalka ka bixinay aniga optionkan ma ii fulisay haddaadan fulin optionkan ama aadan fahansanin optionka wuxuu yahay optionka waxa weyn ma ahaba waxa weeye leed ina muuqaalka saartid sii sheergaree saaxiibada la wadaag kuwa whatsappka kugu jira kuwa facebooka kugu jira dhammaantood la wadaag isaga uga faa'iidaystaan muuqaalka hadday ku camal falaan oo si wacan uga faa'iidaystaan ajar baad ku leedahay muuqaalka anaana ku damaano qaadaya anigaagin muuqaalka sameeyey haddaad sheergaraysid weeye markaa optionka lagu sheegayaa waa caynkaas inaad muuqaalka leed saartid jalanka subscribe saartid haddaad ku cusub tahay muuqaalkana saaxiibada la wadaagtid muuqaalkeena maanta intaasu ka egyahay koleyna muuqaalka waxaad ka faa'iidaan filaya insha allah waxaan iga tegayaa intuu maanku gaajiisan yahay guuli waa weli ayuu abwaan hadraawi yiri allah u naxariiste waxaan iga tegayaa inta muuqaalka xiga aan iskugu أمانة الله والسلام عليكم ورحمة الله.